36 sannadood kadib, Lionel Messi ayaa maray wadadii Diego Maradona isagoo Argentina u qaaday koobka adduunka kadib markii ay rigooreyaal 4-2 ay uga badiyeen xulka France ciyaar finaalkeeda adkeyd oo la isla gaaray ilaa 120 daqiiqo. Markii ugu horeysay tan ilaa 1986 ayaa Argentina ku guuleysatay koobka adduunka, waxayna uga mahadceliyeen mucjisada Lionel Messi. Argentina ayaa 2-0 ku hogaamisay ciyaarta ilaa daqiiqadii 78aad kadib goolal ay dhaliyeen Lionel Messi iyo Angel Di Maria, laakiin waxaa ciyaarta dabargo'ay Kylian Mbappe oo 92 ilbiriqsi gudahood ku bareejeeyay goolasha Argentina. Waxay taasi keentay in 30 daqiiqo oo dheeri ah la isla aado, iyadoo markaasi daqiiqadii 109aad hoggaanka ku soo celiyay Lionel Messi, laakiin daqiiqadii 118aad ayaa mar kale bareejeeyay Kylian Mbappe oo 3 dhameystiray. Rigooradii la isla aaday waxaa 4-2 ku badisay xulka Argentina kadib markii France rigooreyaal ay ka khasaariyeen Coman iyo Tchouaméni. Qaybtii hore ciyaarta waxaa dhelay koox weyn iyo koox yar, sababtoo Argentina ciyaarta bilowga ilaa seeriga waqtiga nasiinada iyada ayaa sidii ay doonto ka yeelanaysay garoonka, halka Faransiiska ay u muuqdeen kuwo ilaaway in ay ciyaarayaan kulan finaal koobka adduunka. Argentina ayaa si dardar leh kusoo laabatay, waxayna durbadii bartilmaameedsadeen garabka bidix ee Faransiiska oo ay saarnaayeen Koundé iyo Ousmane Dembélé, taasi oo sidoo kale sababtay in Kylian Mbappe garabka midig ku cidloobo. Argentina ayaa xeeladeeda ku faa'iiday markii ciyaarta ay mareysay 21 daqiiqo. Ousmane Dembélé xirada ganaaxa ayuu ku jilaafay Angel Di Maria, iyadoo garsooraha uusan ka laablabayn inuu Argentina u dhigo rigoore. Kabtanka xulka Argentina Lionel Messi ayaa u soo istaagay oo dhan qaldan u diray Hugo Lloris, isla markaana hoggaanka u dhiibay xulkiisa, waxaana uu ciyaarta ka dhigay 1-0, waxaana uu bareejiyay rikoorkii Pele ee 12 gool ee laga dhaliyay koobka adduunka. Sidoo kale Messi ayaa noqday ciyaaryahaankii ugu horeeyay ee abid gool ka dhaliya group kasta oo ka mid ah koobka adduunka, laga bilaabo wareegga guruubyada ilaa ciyaarta kama dambeysta. Ma jiro ciyaaryahan sidaas oo kale sameeyay. Argentina ayaa hoggaanka sii dheeraystay daqiiqadii 36aad kadib markii ay dhaliyeen gool lagu tilmaamo inuu yahay goolka finaalka koobka adduunka, kadib markii ay baas qurux badan ay isla heleen ka hor inta uusan xidiga Magalhaes kubadda baas u dhigin Angel Di Maria oo dhameystirin kubaddaasi uu doomariyay goolahayaha xulka qaranka Faransiiska Hugo Lloris. Tababaraha xulka Faransiiska oo adkeysan waayay sida xulkiisa loo galay ayaa sameeyay 2 bedel iyadoo aan la gaarin waqtigii nasiinada, waxaana uu soo bixiyay Olivier Giroud oo ciyaarta dulsaar ku ahaa iyo Ousmane Dembélé oo ahaa xidigii ugu xumaa garoonka, isagoo bedelay xidiga lagu magacaabo Marcus Thuram iyo xidiga lagu magacaabo Kolo. Qaybtii hore waxaa lagu kala nastay iyadoo Faransiiska uusan hal mar xitaa kubadda ku dhex taaban goolka Argentina, isla markaana aan helin xitaa hal darbo, iyadoo Argentina ay si raaxo leh 2-0 ciyaarta ugu dirtay xulka qaranka Faransiiska. Qaybtii labaad ilaa laga gaaray daqiiqadii 65aad waxba ciyaarta isagama bedelin. Argentina ayaa weli kontaroolka ciyaarta haysay, laakiin Faransiiska ayaa ugu yaraan waxay damcayeen in ay ciyaarta ay kusoo laabtaan waqti hore. Tababaraha xulka Faransiiska Didier Deschamps ayaa ku qaadatay daqiiqadii 68aad ee ciyaarta inay helaan darbadoodii ugu horeysay, taasi oo aan wax lama filaan marka loo eego in ciyaarta ay ahayd finaal koobka adduunka. Laakiin ciyaarta ayaa wali noqotay wixii ka dambeeyay daqiiqadii 78aad kadib markii rigoore loo dhigay Faransiiska, iyadoo xidiga Otamendi xirada ganaaxa ku jilaafay Kolo, waxaana rigooradaasi u soo istaagay Kylian Mbappe oo ku guuleystay in uu doommariyo goolahaye Emiliano Martinez. Daqiiqadii 97aad Hugo Lloris ayaa sameeyay badbaadin cajiib ah kadib markii uu bixiyay darbada gantaal ahayd oo ka timid Lionel Messi. Waqtigii caadiga ciyaarta waxay ku dhamaatay barbara 2-2 iyadoo la isla aaday 30 daqiiqo oo dheeri ah.
Daqiiqadii 104aad, Upamecano ayaa isku dhigay kubbadda gool loo filashay oo ka timid Lautaro Martinez kadib markii baas uu soo dhisay Lionel Messi. Daqiiqadii 109aad, xiddiga 7 jeer ku guuleystay Ballon d'Or Lionel Messi ayaa hoggaanka u dhiibay Argentina kadib markii Hugo Lloris uu soo bixiyay darbad ka timid Lautaro Martinez iyadoo Messi darbadaasi dhaafiyay xariiqda goosha. Faransiiska ayaa ku dooday in goolkaasi offside ahaa, laakiin VAR ayaa muujisay in Raphael Varane uu offside ka saaray Lautaro Martinez, sidaasina lagu oggolaaday goolkaasi. Laakiin wiilka dahabiga Kylian Mbappe ayaa diiday in ciyaarta ay sidaasi ku dhammaato, waxaana uu bareejiyay xulka qaranka Argentina daqiiqadii 117aad kadib markii rigoore loo dhigay isaga oo dhan qaldan u diray goolhaye Emiliano Martinez, ciyaartana ka dhigay 3-3. Kylian Mbappe ayaa 3 ka dhaliyay koobka adduunka, waxaana sidoo kale bareejiyay rikoorkii Messi iyo Pele iyagoo leh min 12 gool koobka adduunka. Waqtigii dhimashada ciyaarta, Cola ayaa helay kubbadda gool loo fishay, laakiin waxaa si cajiib ah uga badbaadiyay goolhaye Emiliano Martinez. 120 daqiiqo oo ciyaarta ay socotay waxay ku dhamaatay barbara 3-3, waxaana la isla aaday rigooreyaal. Argentina ayaa rigooreyaal 4-2 ku badisay kadib markii Faransiiska ay rigooreyaal ka khasaariyeen Coman iyo Tchouaméni.